daawade waxaad ku soo dhawaataa janalka Masrax Official aad uga barateen casharada maadada chemistry-ga haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo boqoto janalka fadlan subscribe saaro gambaleelkana furo si casharada xiga ay kugu soo dhacaan sidoo kale like-tana waa inaad nagu dhiirigelisaa commentigana waa inaad noo soo qortaa si casharar badan aan usoo dhigno oo commentigaaga uga mid noqdo dhiirigelinteena su-aasha isweydiinta badan ayaa waxay tahay maxaa la dhahaa IUPAC maxaa laga soo gaabiyey waxaa laga soo gaabiyey International Union of Pure and Applied Chemistry ayaa laga soo gaabiyey waxaan leenahay IUPAC maxaa laga soo gaabiyey International Union of Pure and Applied Chemistry ayaa laga soo gaabiyey haddii lagu weydiiyo IUPAC qeex maxaa ku qeexi karnaa this systematic nomenclature waa nidaam magacaabis ah modified taasoo ay muujiyeen by a group of scientific group saynisyahana in 1958 waxaan rabnaa inaan u gudubno IUPAC rules sharciyada IUPAC for naming ee magacaabidda alkeniska marka la rabo in la magacaabo IUPAC waxay lahaayeen sharciyo magacaabidda markay magacaabayaan alkeniska waxaana rabnaa qodobadaas inaan dhex galno qodobka koowaad ayaa wuxuu noqday wax la yiraahdo determine waxaad cadeysaa qodobkooda wuxuu noqday determine cadeey baranti jane silsilada ugu dheer ama silsilada kaarboonada ugu dheer yihiin iyo cygene kaarboonada dhinaca ku dhagaya tusaale ahaan oo kale markii kaarboonka oo saan oo kale u qoran yahay kaarboon koowaad labaad waxa inta ku dhagaya waxaa la yiraahdaa cygene silsiladan ugu dheer ee kaarboonadana waxaa la dhahaa baranti waxaa loo yaqaanaa baranti jane tanna waxaa loo yaqaanaa dhinaca ku dhagaysa maxaa loo yaqaanaa waxa la yiraahdo cygene so waxaan u maleeyaa inaan meeshaas aan fahnay qodobka labaad ku xiga beginning with the end closest to the branching waxaa laga bilaabaa branchiga meesha uu ka dhow yahay tusaale ahaan oo kale markaan rabo ani inaad tiriyo kaarboonka koobaad waa kan kaarboonka labaad kaarboonka saddexaad afraad kan oo kale aan rabaa meesha aan ka tirinayo oo fududa inaan anaha aan fududaystaan rabaa tusaale ahaan oo kale anigoo kalada markaa fiir waxaa la dhahay beginning waxaan ku bilaabaynaa inaan ka tirino meesha ugu dhow yahay branchiga tusaale ahaan oo kale ereyga hadda saddex ereyb inaan maskaxda ku qaataa muhiim ah ereygan la leeyahay substituent-ga ereygan substituent-ga ereygan tusaale ahaan oo kale meeshan waxaa ku qoran erey la yiraahdo cygene kan kow ka dhigo kana waxaa ka dhigataa laba ka dhigo kana waxaa ka dhigataa laba ka dhigasa u fahamtid kana waxaa ka dhigataa saddex macnaha substituent-ga iyo branchiga iyo cygene-ka wax micnaa masdooriya waxa kaarboonkas dhinaca ku dhagaya waxaa loo yaqaanaa cygene branching oo noqdaa substituent oo noqdaa okay marka xageen ka bilaabaynaa tirinta meesha ugu dhow ee kaarboonka ugu dhow tusaale ahaan kaarboonadii waa 4 parent jane-kii waxa waaye 4 marka kaarboonka ugu dhow kana ka bilaabo 1 2 3 4 so meesha ugu dhow cygene-ka uu ku dhagaya meesha ugu horreeya branch uu ku dhagayan ka bilaaba tusaale inta kama bilaabo 1 2 3 inta kale laba kaarboonka labaad ayaa ugu dhow parent macnaha cygene-ka kaarboonka labaad ugu dhow inta ka soo tirina marka okay maxaan sameynaa kabacdi number waa numberina the number ayaan u sameynaa waa numberina the carbon atoms in the parent gene waa numberina tusaale ahaan oo kale markii meesha ugu dhow aan ka tirinaa waa kana haddana waa numberiyey number aan ku sameeyey maxaan sameynaa name waa magacaaba the substituent-ga magacaaba substituent-ga wax kala maahan as alkyl group substituent-ga waa kaarboonkan cygene-ka inta yaala oo branchiga ah kaarboonkan branchiga ah oo inta yaala ayaan wax u magacaabaa sida alkyl group-ka loo magacaabi jiro oo kale haddii alkyl group oo yihiin waxa ku dhagan haddii wax kale yihiin as alkyl group aan u magacaabina prefixing the number waxaa horgalo looga dhigaa numberka of the carbon attached ee kaarboonka ku dhagan yahay tusaale ahaan oo kale numberku waa kan kaarboonka labaad ku dhagan yahay sama waa kana horgala looga dhigaa maxaa looga dhigaa horgalo markii looga dhigo kabacdi maxaa la qaadanaa kaarboonka labaad waxaa ku dhagan la leeyahay cygene-ka ku dhagan qaadanay tusaale ahaan oo kale markii lagu dhahay prefixing waxaa horgalo ka dhigaysaa the number of the carbon attached
numberka kaarboonka uu ku dhegan yahay ayaa waxa ka dhigaya horgale tusaale kaarboonka labaad hadda ku dhegan yahay kan wuxuu ku dhegan yahay kaarboonka labaad qodobka kale ugu xiga afraad wuxuu noqon doonaa oo ay baaga sharciyada dishin waxa kamid ah if there are two or more substituents haddii ay jirto laba substituent iyo wixii ka badan give each one mid kasta waxaa sidaa numberkiisa si and list waxaa tixdaa them alphabetic order kabacdina waxaa kala hormarisaa xarf ahaan with adoo isticmaala hyphens between waxaa u dhexeeya words ereyada and number ereyada iyo xarfaha waxa u dhexeeya wax la yiraahdo hyphen tusaale ahaan kale zay jinkana qoran tusaale ahaan kale baarad jinkan inta waxa ku dhagan chlorine ku dhagan inta kore waxa uga dhagan CF ku dhagan marka hadhow marka magacaabayso waxa u kala hormarinay xarf ahaan tusaale ABC da si u kala horeeyaan ilaa Z ayaa u kala hormarinaysaa qodobka shanaad waxaan leenahay if a compound has two or more identical substituents haddii isku dhiska ama ka parent gene-ka meeshan ku qoran oo silsilada dheer oo yeesho wax la yiraahdo side gene hadduu yeesho waliba side gene-daas ay haddii ay yihiin laba isku mid ah hadday yihiin saddex isku mid ah hadday yihiin iyo wixii kaba laba iyo wixii ka badan ay noqdaan designate the number of identical substituents waxaa la isticmaalaya with the prefix waxaa horgal ahaan u isticmaalaya dhahay tusaale laba side gene isku mid ah midna kaarboonka saddexda ku dhigay midna kaarboonka labaad ku dhigay waxaa leedahay 2,3 getin dai ay isticmaalay kabacdi waxaa ku daraya waxa la yiraahdo waxa substituent-ga oo as alkyl group ahaan ayaa u magacaabay waxa zygen-ka ah kabacdina waxa okay hadii saddex zygen oo isku mid ah oo parent gene-ka ku dhagan yahay mid kaarboonka shanaad ku dhagan mid kaarboonka la kor iyo hoos uga dhagan yahay waxa calanta try hadii ay ka badato saddex waxa isticmaali doontaa wax la yiraahdo tetra intaas markii aad isticmaashay qodobka lixaad oo ilaa wuxuu noqon doonaa name magacaaw the parent gene ayaan magacaabaysaa using adoo isticmaalaya appropriate prefix horgalaha ugu haboon aan suffix gadalgalaha in ee isticmaalaysaa tusaale markaad rabto inaad parent gene-ka aad magacaawdid waxaa isticmaalaya horgalaha ugu haboon iyo gadalgalaha oo ah in gadalgalaha markasta adiga silsilada ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa in toddoba waxay noqon doontaa then ka bacdi right qor the name magaca of a common isku dhiska in the format ee formatka qor waxaa rabaa dhammaan ardada Soomaalida oo dhan inaan u sheego halogen groups-ka waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo as a side gene waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo as side gene waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo side gene waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo side genes waxaan u isticmaali karaa wax la yiraahdo side genes waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo side genes tusaale kale waxaan arki doonaa wax la yiraahdo halogen groups waa groupka cusbaalada tusaale kale BR oo side gene arki doontaa markii aad magacaabaysid waxa u qaadanaysaa promo CL oo arki doontaa meel ku dhigno side gene ah waxa u qaadan doontaa chloro waxa arki doontaa iodine oo meel ku dhigan waxa u qaadan doontaa iodo waxa arki doontaa fluorine oo meel ku dhigan oo side gene ah waxa u qaadan doontaa fluoro halogen groups are used waxa loo isticmaalaa as side gene waxa loo isticmaalaa in hydrocarbon-ka marka joogno waliba alkene-ka ama waxa la yiraahdo alkene ama alkene-ka markaan si fiican uga hadlayno waxaan u isticmaali doonaa wax la yiraahdo as side gene ahaan ayaan u qaadan doonaa haddii aan la yiraahdo inaan intaas isla fahno ayaan jeclahay tusaale kale examples waa kana silsiladana waxaan rabnaa inaan magacaawno tusaale kale kaarboonka labaad waxa ku dhagan hadii lagu yiraahdo magacaaw naming ku sameeyay hadii lagu yiraahdo maxallada horta waxaan u fiirinaynaa horta parent gene-ka waa afar kaarboon waaye hadda inta ka tiri laakiin sharciga ay baaga wuxuu qabay meesha ugu dhow side gene-ka ku dhigay kan waxa la dhahaa meeshan waxa ku dhagan maxaa waaye meeshan waxa ku dhagan maxay waa side gene la yiraahdo CH3 oo methyl ah meesha hadii aan inta ka soo tiri wuxuu noqonaa 1 2 3 wuxuu noqonaa hadda inta ka soo tirina wuxuu noqonaa kaarboon marka inta ka tirina marka aan ka tirinayna inta wuxuu noqon doonaa 1 2 3 4 marka magacaawna hadii la yiraahdo kaarboonka labaad ku dhigay kaarboon parent gene-ka kaarboonka labaad ee looga dhigay waxa ka dhigaynaa horgalaan ka dhigaynaa waxaan isticmaalnaa numberka iyo xarafka waxa u dhaxeeyaan dhan hyphen sama getin ayaan qaadanaynaa oo hyphen ah waxaan leenahay kaarboonka labaad waxa ku dhigan waa inaan magacaawna waxa ku dhigan waa maxay
waa methyl waxaa methyl waxaa methyl waa maxay methyl maadaama uu yahay kaarboonka labaad waxa ku dhegan methyl oo yahay silsilada ugu dheerna waa maxay waa butane waa maxay butane silsilada ugu dheer barentiga waa maxay sababta aan u qaatay but markaan iri gadaal waxaa ka jira wax la yiraahdo ANE sababta butane aan u qaatay waxay tahay silsilada aan magacaabayo horta meeshan waxaa yaala wax la yiraahdo single bond ayaa yaala maadaama single bond oo yaal silsilada aan magacaabayo waxaa iga cad meeshaas ay tahay gebigeed waa single bond inta waa single bond single bond marka waxaa leenahay kaarboonka labaad waxaa ku dhegan methyl butane okay talabaad haddaan rabno inaan magacaawno inta maa ka tiri karnaa 1 2 3 4 ka afraada ku dhegan in haddaan inta kasoo tirino wuxuu ku dhegan yahay midka okay inta ka tirinina marka 1 2 3 4 5 parent chain-kayga waa 6 kaarboon waa hexane haye waxaan leenahay kaarboonka saddexaad hoosna waa laga haystaa inta qaybtan hoose waa looga dhegan yahay oo waxaa ku dhegan side chain korna waxaa ku dhegan waxa la yiraahdo side chain ayaa ku dhegan haddana side chain-nadii waa isku mid inta waxaa kan wuxuu ka bilaabanaa m uu ka bilaabanaa waa methyl kan wuxuu ka bilaabanaa methyl kan wuxuu ka bilaabanaa methyl haddana molecular formula ay qoran yihiin waa isku mid waxaan leeyahay markaan magacaabayo kaarboonka saddexaad laba jeer lagu dhegan marka maxaa leeyahay 3,3 waxaan isticmaali doonaa 3,3 kaarboonka saddexaad laba jeer lagu dhegan yahay 3,3 dan waxay ka dhigan tahay kaarboonka saddexaad laba jeer lagu dhegan yahay ay ka dhigan tahay 3,3 aan leeyahay GT aan leeyahay haddii side chain-nadu ay laba noqdaan ayna isku mid noqdaan waxaan isticmaalaa wax la yiraahdo die waxa ku dhegan waa maxay laba jeer ayay methyl ku dhegan tahay kaarboonka saddexaad ayaan leenahay silsilada ugu dheerna waa maxay dimethyl ayaan leenahay dimethyl macnaha waxay ka dhigan tahay kaarboonka saddexaad laba jeer lagu dhegan yahay maadaama kaarboonkan laba jeer lagu dhegan yahay waxa ku dhegan silsilada ku dheganna side chain-ka dhinaca uga dhegan ay isku mid yihiin waxaa leenahay 3,3 kaarboonka saddexaad laba jeer lagu dhegan yahay yaa ku dhegan maxaa isticmaalna dimethyl ayaan isticmaali doonaa silsilada ugu dheer maxay noqon doontaa hexane parent chain-kayga waa maxay hexane ayaan gadaal uga darsanaa maxaa waaye hexane gadaal maxaa lagu daraa hexane hadda waxaa fahatay silsilada kaarboonada ugu dheer waxaa waaye waa waxa hexane maadaama hexane ay tahay 3,3 methyl hexane ayaan qaadanaynaa marka hore waxaa la xaliyaa side chain-nada la xaliyaa kabacdina gadaal waxaa looga daraa silsilada ugu dheer oo ah parent chain-ka waxaan rabnaa inaan ka hadalno midkaan magacaabo haddii lagu yiraahdo tusaale ahaan oo kale kan 1 2 3 inta uga dhegan yahay ka saddexaad uga dhegan kan wuxuu ku dhegan ka labaad marka waxaa laga tirinaa intaa ka tirinaya 1 2 3 4 5 6 7 haye si u magacaabeynaa kan waxaan leenahay wax kale ma dhahayno kaarboonka labaad maxaa ku dhegan methyl ku dhegan methylkaas ah la mid waxaan isticmaalaa comma waxaan isticmaali doonaa comma haye kaarboonka shanaad maxaa ku dhegan isla methyl waa side chain isku mid ah 2,5 GT side chain-ka ku dhegan kaarboonka shanaad waa isku mid waxaan qaadan doonaa hadday side chain isku mid noqdaan dimethyl silsiladu maxay noqon doontaa ugu dheer waa maxay waxaa la yiraahdaa
dimethyl daawade waxaan rajeynaa inaad casharka si fiican ula socotid 2.5 dimethyl ayaan leenahay silsilada ugu dheer waa maxay markaan waxaan soo xalinaa side chainadii silsilada ugu dheerna waxay noqon doontaa waxa la yiraahdo heptane oo h ka bilaabanaysa waxaan waa h ah heptane aragtigi waa maxay heptane marka la magacaabayo heptane okay midkaan waxaan rabnaa inaan magacoono waa midkii ugu adkaay ugu adag ku jiraa marka loo fiiriyo waxaan fiirinaynaa horta haddii la yiraahdo kuwan hala magacaabo inta fluorine ku dhagan inta waxaa ku dhagan br inta waxaa ku dhagan ethyl inta waxaa ku dhagan chlorine side chainadan waxaan u fiirinaynaa xarf ahaan si u kala horeeyaan tusaale ahaan oo kale a b c waxaa horeeya b a horeeyda horta xarfaha ii qor horta waxa meesha ku dhagan xarf ahaan yaa horeeya b a horeeyda b maxaa ku xiga c a ku xigta maxaa ku xigta c a ku xigta oo chlorine ah waxaan leenahay a b c d e waxaa ku xigta e ayaa kusii xigta e daas oo ka bilaabi doonta waxa la yiraahdo iyo f waxay u qataa xarfaha si u kala horeeyaan hadhowna waxaan sii doonaa mid kasta kaarboonka uu ku dhagan yahay tusaale kan wuxuu ka bilowdaa f waa fluoro kan waa chlorine wuxuu ka bilowdaa c kan bromine wuxuu ka bilowdaa bir kan waxa waa ethyl e uu ka bilowdaa wuxuu ka bilowdaa kan e ayuu ka bilowdaa kana waa ujeeda xarafka b uu ka bilowdaa kana f uu ka bilowdaa waa fluoro kan wuxuu ka bilowdaa c oo chloro ah marka hadhow hala magacaabo haddii la yiraahdo horta kaarboonada hala tiriyo haddii la xagee kan haddii la tiriyo kan wuxuu uga dhagan yahay kaarboonka afraad inta laakiin marka laga soo tiriyo wuxuu uga dhagan yahay kaarboonka labaad inta ka tirinayna marka 1 2 3 4 5 6 7 8 xarfii waa kala duwan yihiin sax marka maxaa ugu soo horeeya b a ugu soo horeeya kaarboonka saddexaad maxaa ku dhagan leena kaarboonka saddexaad maxaa ku dhagan waxaan rabaa inaan ka jawaabto answer ans ka soo qaado waxaan leenahay numberka waxaan dhahnay uu kaarboonka ku dhagan yahay waxaa numberka horgala ka dhigaynaa tusaale waxaan leenahay 3 kan waxaan u qaadanaynaa br tan bromo u soo qaadanaynaa soo kuma dhihin 3 bromo haye 3 bromo cheating kaarboonka saddexaad waxaa ku dhagan bromo maxaa ku xiga c ayaa ku xigta alphabetka loo xarf ahaan c xarafka ku xiga magaca 2 chloro kaarboonka labaad maxaa ku dhagan chloro kaarboonka labaad maxaa ku dhagan chloro taas waxaan waa alphabetical order soo soco haye e ay kaarboonka ku dhigan tahay e ethyl kaarboonka shanaad waa kana kaarboonka shanaad ayaa ku dhigan kaarboonka shanaad waxa ku dhigan sheeg jiitina isticmaalaysa haddana ethyl haye f ka waxaa kuu saar xarafka f oo alphabetka xarafka f kaarboon ku dhagan yahay kaarboonka afraad ku dhagan yahay kaarboonka afraad waxaan u qaadanaynaa fluoro silsilada ugu dheer waa maxay waa 8 fluoro silsilada ugu dheer waa maxay octane brown hadda waxaan dhahnay kaarboon saddex brown ku dhagan marka hadda silsilada waa magacoona marka magacaabayna marka maxaan u fiirin xarf ahaan siday u kala horeeyaan u fiirin tusaale kale kan oo kale markaan tirinayno kaarboonka saddexaad oo kale aan ka tirinaynaa
hadda intaa kan ka tirinaynaa waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 waa 7 waa 8 waa 9 markan haddii lagu dhaho lacala magacaaw say u magacaabaysaa horta waxaan u fiirinaynaa alphabetical order yaa ugu horeeya horta waxa ugu horeeya xarafka b horta meeshaan dhigo xarfaan yaa ugu horeeya xarafka b aa ugu horeeya maxaa ku xiga xarafka c maxaa ku xiga xarafka c b aa ku xiga c aa ku xiga maxaa ku xiga xarafka e ayaa ku xiga e maxaa ku xiga marka e maxaa ku xiga f ayaa ku xiga f noo ku dhagan yahay haddana mtee ka bilaabanayo mithaal marka magacaa waa lagu dhahaa marka waxaan marka hadda adiga xarf ahaan u kala hormarsatay broma meeshii taala colora meeshii taala ethal meeshii taala flora meeshii horta xarfaha marka hore xaliso si u kala horeeyaan mid kastana hadhow waxaa u fiirisaa kaarboonka ku dhagan yahay mid kasta maxaa u fiiriya b kaarboonka ku dhagantaa fiiri haddii 2 jeer ay ku dhaganta xalli haddii 1 jeer ku dhaganta xalli haddii 3 jeer ku dhaganta xalli okay b aa ku saaray b ay meeqa jeer side chain fiiri b hal mar ay side chain hal mar marka maxay noqonay 6 bromo maxay noqon doontaa 6 bromo marka maxaa loo fiiriyaa alphabetical order alphabetical order haye alphabetical order 6 bromo kaarboonka lixda ku dhiganta c aa ku saaray c ay meeqa jeer side chain 2 jeer side chain kaarboonka shanaad waxay ku dhigantaa 2 jeer ku dhiganta marka waxaan leeyahay kaarboonka shanaad 2 jeer ku dhigantaa 5,5 aan leeyahay 5 5 yaa ku dhagan meeqa jeer lagu dhagan yahay die isticmaala soo 2 jeer kuma dhigana die coloro haye dicoloro maxaa waaye kaarboonka shanaad 2 jeer lagu dhigay 5,5 maxay ka dhigan tahay kaarboonka shanaad 2 jeer ayaa lagu dhigay g10 maxaa ku xiga e meeqa jeer saa jeeta 1 way tahay 2 way tahay 3 way tahay mar kaarboonka labaad 2 jeer ku dhigantay kaarboonka toddobaadna hal mar ku dhigantay mar waxaan leenahay 2,2 kaarboonka labaad 2 jeer horta ku dhigantay sooma kaarboonka labaad meeqa ku dhigantahay 2 jeer ku dhigantay haddana xakad dheh kaarboonka toddobaadna mar ayay ku dhigantay maxaa ku dhigan yahay waa ethyl g10 meeqa jeer waa 3 sooma 3 dee noqot maxaa la isticmaalaya try tricoloro haye maxaa dhiman f ay meeqa jeer side chain hal mar ay side chain kaarboonka hal mar ku dhigantay waxaan leenahay kaarboonka maxay ku dhigan tahay ee ku dhigan waxaa la yiraahdaa fluoro ku dhigantay xaaladda maxay ku dhigantay fluoro haye m kaarboonka ku dhigantay meeqa jeer side chain hal mar ayay side chain fluoro 2 jeer side chain tahay meeshan qalad yar madbiic ayaa dhacaya fiiri fluoro
mar waa tan hal mar kaarboonka lixaad marna kaarboonka toddobaad. marka maxaan dhihi doonaa marka dhow okay meeshan xali ah marka maxay noqon doontaa kaarboonka lixaad waa lagu dhagan yahay hakad kaarboonka toddobaadna waa lagu dhagan yahay yaa ku dhagan kaarboonka lixaad toddobaad waa lagu dhagan yahay yaa ku dhagan fluoro meeqa jeer haystaa laba jeer macnaa saijinta difluoro waxaa kusoo haray difluoro waxaa kusoo haray xarafka m kaarboonka afraad hal mar ku dhagan yahay kaarboonka afraad jiitinta soo qaado jiitinta ha ka tegin kaarboonka afraad hal mar ayuu wuxuu yahay methyl silsilada ugu dheerna waa maxay nonane for methyl silsilada ugu dheer waa maxay waxa la yiraahdo nonane marka hadda aad ayaa u magacoobay marka waxaa lagaa rabaa haddii aad fahamtay daawade casharka waxaan kaa codsanaa daawade qaybtan inay adinka magacoowdiin 6 iyo 7 adinkaan ii day doonaa tusaalahaan oo kale kanoo kale waxaa u qaadanaysiin anaa hadda kuu sheegaa daawadayaasha rabaa inaan u daayo daawadayaasha generalka waxaan iga codsanaa hadda kanoo kale uu iska fudud yahay chlorine oo kale 3 jeer ay tahay waxay noqon doontaa wax la yiraahdo 2,3,4 trichlor ay noqon doontaa ayaa isticmaali doontaa b ugu hore xarf ahaan marka waxay noqon doontaa 4 promo G10 2,3,4 trichloro 2,3 difluoro silsilada ugu dheerna markaas ku magacaabo meeshan maxaa taala waxa la yiraahdo jinkan qaabkan waa soo dhignay waxaa la yiraahdaa kaarboonka trikana isobutyl noqon doonaa isobutyl adaa lagaa rabaa kaarboonka markuu kaarboonana dhan 4 u xisaabso kan haddoo kale wuxuu noqonaa hexane uu noqonaa kan chlorine uu noqonaa saijane u xisaabso marka waxaan iga codsanaa inaa arrintan aad soo xalisiin si weliba commentiga aad kusoo qortiin linka raalli ah daawadayaasha qiimiga badan waxaan iga codsanaa fadlan haddii aad channelka la socotiin inaad markasta ku xirnaatiin oo aad subscribe-ta nagu caawisiin isku daya